maareeyaha guud ee shirkadda korontada ee Indho Birta oo qayb ka mid ah magaalada Hargeysa leydhka siiya ayaa wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Slnd ku eedeeyay inay hortagan tahay sidii bulshada Soomaaliland ay u heli lahaayeen leydh tayo leh. waxaanu uu sheegay in mishiino iyo qalab cusub oo sahlaya sidii leydh tayo leh ay u heli lahaayeen shacabka magaalada Hargeysa ay wasaaradda macdantu hortagan tahay. waxaan ahay mas'uul ka socda shirkadda National Indho Power oo loo yaqaano Indho Birta. shirkadani waxay ka mid tahay shirkadaha leydhka siiya magaalada Hargeysa. waxa weeyaan waa shirkad u heelan inay raali geliso macaamiisheeda. waa shirkad runtii qorshayaal badan ay u yaalaan sidii ay u soo saari lahayd leydh tayo iyo tiro qiimihiisuna uu macquul yahay. waxaanu ku faanaynaa ka shirkad ahaan inaanu anagu competition adag kula jirno shirkadaha kale oo ay taasina muhiimad leedahay. mujtamacana waxaanu jecelahay inaanu mar walba gaadhsiino faa'iidooyinka uu leeyahay tartanka xorta ah. marka aad loo tartamo waad aragtaan shirkado badan oo laga caban jiray qiimuhu hoos buu dhacayaa, tayada iyo adeegu hoos buu dhacayaa. shirkadaydu waxay muhiim u leedahay in ay tartanto oo ay mar walba ku tartanto adeeg qiimo iyo service macquul ah. waxaanu aad iyo aad u hambaleynaynaa shacabka iyo dadka aanu maaragtay adeega u bixino. waxaanu u sheegaynaa inaanu ku hawlanahay sidii shirkadaasi ay xarumo cusub u dhisi lahayd, walow ay jirto culays fara badan oo nagaga yimaada wasaaradda tamarta oo runtii ilaa hadda mashaariicdii horumarineed ee aanu rabnay inaanu samayno sida mashruucii aan ugu talagalnay aan ku dhalino renewable energy-ga ay wasaaraddu naga hortaagan tahay. sidoo kale waxay wasaaraddu naga hortaagan tahay in goobaha qaarkood aanu gaadhno oo aan la ogolayn inaanu tagno. ma garanayno sababta runtii ka dambaysa arrinta. saxaafadda aanu sheegaynaa inay weydiiso dawladda sababta loo diidayo tartanka. waxaan sidoo kale shacabka ka codsanaynaa inay mar walba dhiirigeliyaan tartanka, waayo tartanku wuxuu keenayaa haddii loo helo qof monopoly wax ku qabanaya waxay imaanaysaa in aan shacbiga adeeg fiican helin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. shirkadda Indho Birta waxay leedahay mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu bixinno adeeg macquul ah oo aanu ku tartanno suuqa xorta ah oo aanu adeeg wanaagsan gaadhsiino macaamiisheeda. taasina muhiimad bay noo wada leedahay, waana runtii ta keliya ee keeni karta in bulshada loo helo adeeg macquula. cabashooyinka faraha badan ee jira iminkana lagu xallin karo. waxaanu qabnaa suuqa xorta in la xoojiyo. sidoo kale waxaanu diyaar u nahay mar kasta wixii cabasho ah ee dadweynaha ka timaada xafiiska National Indho Power wuxuu diyaar u yahay inuu xalliyo. inkasta oo runtii dadku ay aad iyo aad noogu amaanayaan tayada leydhkayaga uu leeyahay. warshado badan baa naga codsaday, laakiin waxaanu ka cudur daaranaynaa in control naga yimid dawladda aawadeed aanay suurtagal ahayn inaanu soo gaadhsiino. waxaanu rajaynaynaa insha Allah in xilligeega iman doonto. mar kasta oo runtii aanu samayno proposal aanu guideline-ka u yaala wasaaradda tamarta aanu waafajinno, mar walba waxa la noo sheegaa in ay wasaaraddu joojisay dabfidintii. marka ma garan karno qalabkii iyo waxyaabihii aan rabnay tayada inaanu kor ugu qaadno shirkadda si leydh filan dadweynuhu oo ay baahi runtii u qabaan loo helana waxa weeyaan wuu naga xayiran yahay. markaad wasaaradda tamarta iyo cidda khusayso muddo dheer bay arrintaasi kulay shirkaddu ku dhacaysay. shirkaddu awood uma laha inkasta oo waddankeenu yahay suuqa xorta. shirkaddu awood uma laha in meel walba ay gaadho. mar wal oo xitaa aanu islaano ka shaqeeya biraha iyaga dadkii noo shaqeynaya waa la xidhayaa, xataa shaqaalaha ma shaqeyn karaan. marka runtii taasi way jirtaa, laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu mar walba duruuf kasta oo adag oo aanu la soo galay dadkaanu u bixinno adeega inaanu mar walba ku dadaali doono inaanu adeegga gaadhsiino. hariya habeenna ka nasan mayno sidii aanu heli lahayn adeeggaas aanu kor ugu qaadi lahayn tayadiisa iyo tayeyntiisaba insha Allah. Duruus Maxamed Caynaan, Goobjoog, magaalada Hargeysa.